السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأمر كذا يجعل كذي يرستدي برشة فيديو قرحين تابع فيديو ديتك فيلم ميكريسك. ما أنت واحد نسوق عن دونا سؤال اللي سوي دي سؤالها نسوي دي نسأل وميلها نقصد ديارنا عشرة سؤال شاس وحي هيد ساتن هذا باب سؤال شاسي أنا كجوابنا وحن وجواب دونا لبا قيبات إنه استعمال دونا لبا software لبدا software كل بكي قفكو جعل سامو كي وفضاده ووتر وابسك عمل لوجوينك uga saari karo video waxaan sameyn doonaa marka hore After Effects-ka baynu gali doonaa oo kaga saari doonaa kadibna waxaan soo wareegi doonaa Premiere-ka ayaan isna kaga saari doonaa labadaasba kii ku fududaada ayaad isticmaali doontaa inaad kaga saarto loogada videoyada ashirkeena aan iska bilaabano marka hore waxaan soo fureynaa After Effects-ka markaynu fureyno waxa jira versionadii hore si 2016ka 15ka iyo wixii ka horeeyay inaad u soo dhigid gareysataa ayaa kugu qasaba effects-kan laakiin 19 iyo 20 saddexdaas in lagu soo versionadii lagu soo daray uu ka mid yahay baan filayaa effects-ka aynu kaga saareyno logooyinka taasina waa muhiim inaad ogaato kusoo dhaw markaynu After Effects-ka soo furno video soo qaadano video ayaan ku dulfaneynaa kadib waxaan tagnaa Windows-ka markaynu tagno waxaan ka tagnaa meesha ay ku qoran tahay Contacts Aware Fill markaynu ka dulfano waxaan soo qaadanaynaa waxaan tagnaa rectangles-ka afar geesta ama afar xagalka ayaan tagnaa afar xagalka markaynu tagno waxaan saareynaa afar xagal ku dul dabooleynaa ama ku dul qabaneynaa loogadii markaynu dul saarno waxaan tagnaa maska markaynu tagno waxaan ku sameeynaa keyframe meesha ugu horeysa ilaa meesha ugu dambeysa keyframe-ka markaynu ku sameeyno keyframe-kaasi wuxuu naga caawinayaa in effects-kan uu si fiican u helo meesha uu loogada ka saarayo ilaa meesha uu ka bilaabayo saaritaanka ilaa iyo meesha uu ku dhameynayo okay markaynu soo saarno keyframes-kaas loogada aynu saarno ilaa xagga hore Contact Aware Fill-kan wuxuu leeyahay saddexda option waxa ka koobaad yahay objects-kaas wuxuu u khaas yahay waxyaalaha sida qof inaad kaga saarto meel aanad rabin inuu joogo inaad ka saarto waan agab meel yaala inaad ka nadiifso ka saarto waxyaalahaas objects-ka ama la taaban karo ayuu maaragtay u khaas yahay waxa jira surface-ka waxa laga saaraa qoraalada sida imka loogadan ay ku qoran tahay meesha ay waana films ku qoran tahay aynu ka saareen loogada ayro kale qoraalada loogooyinka ba iyaduna u qaabsan tahay marka waxaynu naga khusayso aynu kaga saarnaa loogada waa surface-ka aynu ku dhufaneynaa surface-ka markaynu ku dhufano ugu dambeyn waxaan sameynaynaa waynu generate markaynu dhaahno waxaanu sugaynaa inta uu ku dhameystirmayo baynu sugaynaa raallinaan laga hado iska culisay programku marka uu ku dhameystirmo already waad aragtaa in loogadii meesha ka baxday wax looganayo meesha ka muuqan waad aragtaa qaybta koobaad waxaad kaga saaraysaa waa After Effects iyo Contact Aware Fill-kaas haddaynu ka gudubno qaybtaas aan qaybta Premiere-ka u gudubno waxaan soo furanaynaa video-ga aynu loogada ka saareyno waxaan soo kala qaadanaynaa logooyinka laba u qaybsamaan logooyinku mar waxa lagu soo qortaa video-da iyaga oo qoraala marna iyagoo looga qaybta Premiere-ka waxaan sameyn doonaa iyadoo looga ayaan sameyn doonaa video-ga soo qaadanaynaa video-ga markaan soo qaadano waan delete gareynaa ama waxaan ku sameynaynaa copy oo qayb labaad layer labaad baan sameysanaa layerka labaad markaynu sameysano waxaan ku kasare layerka aynu sameysanay ama aan copy-sanay baynu saareynaa crop markaynu saarno waxaan ku sameynaynaa crop-ka band tool-ka crop-ta uu leeyahay band tool-ka ama TikTok ayaanu soo qaadanaa kadib loogada dusheeda baynu ku sameynaynaa afar gees loogada dusheeda baynu ku sameynaynaa
afar gees loogada dusheeda markaan afar gees ku sameyno waxaynu daminaynaa ama ishaan xiraynaa muuqaal ahaan u xiraynaa qaybtii hoose ama fiidiyoga caadiga kadib waxa ku muuqda in meel madow ay soo baxday meesha madow marka soo baxdo halka ay ku qoran tahay inverted aynu saarnaa tigta halka markaynu saarno kadib waxaad aragtaa inuu fiidiyogii soo baxay qaybtii afar geesta ku sameynay inuu fiidiyowga soo dhex baxay waxaanu sameynaynaa mask aynu ku sameynaynaa keyframe si socodka uu fiidiyowga sameynayo uu la socdo si loogada meesha uga baxdo u programinaya inta programinayna sugeynaa markaynu u programka dhameystiro baan waxaan sameynaynaa inaynu inverterkii baan ka qaadaynaa tigta waxaanu furaynaa ama aynu fiidiyowga baan sii deynaa aan marka hore qarinay markaynu ka qaadno waxaad aragtaa inay labadii fiidiyoos dhex galeen ay isku mid yihiin ugu dambeyn waxaynu tegaynaa positionka kadib waxaynu kusoo riixaynaa layerkii aynu tigta ku sameynay baynu kusoo riixaynaa xagga ay loogada ku taalo baynu kusoo riixaynaa markaynu intaa kusoo riixno waad aragtaa inay loogadii ka baxday ama loogadii isqarisay ama loogadii aynu ka saarnay meeshii ay taallay labada nooc baa looga saaraa ama labada nooc baynu soo qaadan karnaa qaybo badan oo looga saaraa way jiraan laakiin labada nooc ugu fudud aynu uga saari karno loogooyinka fiidiyoyada iyadoo laga dareemin inay marka hore looga lahayd haddii aad rabto inaad After Effects isticmaasho isku day inaad soo dejisato effectskaas haddii kale aad Premiere isticmaal crop si aad uga saarto loogadii aad baad mahadsantihiin daawadayaal halkan aad naga daawanaysaan waa Yol Studio oo alaaba uga barateen inaan idinka soo gudbino casharada ku saabsan video editingka iyo filmmakingka daawadayaal waxaan xasuusinayaa inaad subscribe noo saartaan haddii aad ka cusub tahay channelka markii ugu horeysay na soo booqatay yahay haddii kale hore noola joogteena aad baad ugu mahadsan tahay share iyo like tu waxayna dhiirigelinayeen aan hore u sii socono nagu dhiirigelinay waxa kale oo waxaan xasuusinaynaa inaan soo wadno maalmaha soo socda short filmyadaas oo ku barano dadka qaabka loo duubo filmaanta dhinaca kamarada qaabka ay u dhacdo ama shortkadyada la qaato sidoo kale barnaamijyo madadaala oo inoo soo gudbin doonaan dad khibradooda u leh aad baan iigu mahadnaqayaa waxaan iiga tegayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu